daawadayaal dhageystayaal iminka waxaa soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya Uhuru Kenyatta iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa hadda soo gaaray sida aad daawanaysaan waxaana la socda oo markaas soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carta ciidanka ayuu hadda salaan ka qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya Uhuru Kenyatta waxaana sidoo kale wafdigiisa ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iminka ayuu gacan qaadaya mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliya si ballaaran ayaa hadda loo soo dhaweynayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wafdiga uu hogaaminayo oo soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey waxa uu soo gaaray halkan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle madaxweynuhu waxa uu iminka gacan qaadaya saraakiisha ciidamada dawladda ee soo gaaray ee ku sugan xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu wuxuu gacan qaadayaa wafuudda markaasi ka tirsan dawladda ee soo dhaweynaysa oo isugu jira saraakiil iyo mudanayaal kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya si fiican oo munaasabadu aad u wanaagsan ay hadda uga socotaa oo aad uga daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliya idinkoo ka dhageysanaya Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya liibaan cabdi cali oo ka tirsan wariyaasheena inoo uga qayb galaya munaasabadda ayaan markan idinku duwayaa si uu markaasi kugu soo bandhigo mas'uuliyiinta soo gaaray xarunta ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliyeed xitaa waxay aad indhaha ugu hayeen imaatinka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee Soomaaliya iyadoo la og yahay Itoobiya iyo Soomaaliya in wax badan ay ka dhaxeeyaan wax badanna ay soo dhex mareen laakiin dad badan laga yaabaa inaysan u qaadanaynin inuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya yimaado ra'iisul wasaaraha Itoobiya hadda ka horna isagoo kusima ah ayuu yimid ka soo qayb galay dhaarintii madaxweynihii hadda xilku ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa haddana uu ka soo qayb galay munaasabadan madaxweynaha Kenya mudane Uhuru Kenyatta ayaa nala sheegaya in uu hadda soo gaaray halkan waxaan arkaynaa inay dad badani joogaan si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hadda la filaya inuu soo galo oo uu dadka la hadlo halkan waxaan arkaynaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waa uu galay safiirkana Soomaaliya ee waddanka Kenya mudane Jamal ayaana la joogaa mudane Jamal ka waran sida ay u socoto munaasabadda madaxweynaha Kenya ayaa hadda soo gaaray u socotaa oo saarka madaxweynaha soo galayaan waxaan rajaynayaa hadda kuwa kalena waa joogaan meesha howlkuna waa buuxaan kala filanaynaa inay yimaadaan oo ay ka soo qayb galaan soo far waxaan haynaa ilaa 3 waa joogaan waxaan rajaynayaa safiiro badan iyo wasiiro fara badan jooga walna way soo galayaan marna aan confirmation ku siinaa insha Allah waa mahadsan tahay safiirka Kenya ee Soomaaliya u fadhiya mudane Jamal Minister Amina can you please talk to us for a moment okay waa safiir wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxay sheegtay inay mar dambe saxaafadda ay la hadli doonto oo ay kala hadli doonto balimaatinkooda waxay qayb ka tahay wafdiga dawladda Kenya ee uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadda soo gaaray diyaaradiisa ay soo caga dhigatay isaguna galay halka ay ku jiraan madaxweynayaasha marka hoolkan isaga ah waa hool aad ay ugu badan yihiin madaxdu maanta waxa ku jira madaxweynaha xilku ka dhamaaday Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku jira ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa ku jira madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa ku jira madaxweyne ku-xigeenka waddanka Suudaan oo isagana wafdi 4 wasiir ka kooban oo uu hogaaminayo ay soo gaareen oo ay ka soo horeeyeen madaxweynaha Kenya sidoo